ku dhawaad 15 ruux oo iskugu jira kooxihii weerarka soo qaaday iyo dad shacab ayaa ku geeriyooday weerar ismidaaminaya mid toosoo al-shabaab ay ku qaaday xarunta dambi baarista ciidamada booliska ee CID ee ku taala isgoyska kiiloomitir 4 ee magaalada Muqdisho. weerarkan ayaa waxa ku dhaawacmay ku dhawaad 20 ruux oo ah dad shacab kuwaas oo la dhigay isbitaalada magaalada Muqdisho. afayeenka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya Cabdi Kaamil Macalin Shukri ayaa sheegay kooxaha weerarka soo qaaday ay gaarayeen 7 ruux isla markaana 5 kamid ay toogteen ciidamada booliska halka 2 kamid ay isqarxiyeen. waxay isku dayeen al-shabaab iyo ugas inay weerarka soo qaadaan xarunta CID-da xaruntaas oo aad u joognayd oo aad ugu amaanayno qaabka ay soo difaaceen oo ay u fashiliyeen waxaan ku dhaafay al-shabaab laba baabuur oo mid taarif ay kaamida nooha ay tahay ayay isku hore ayaa taarif ku dhifteen karana ma soo gaarin meesha oo albaabka ma soo gaarin isku hore toddobadoodina al-shabaabka meesha ayaa lagu laayay hal askari ayaa ka dhintay oo ka shahiiday ciidanka booliska ilaalada meeshaas shan kamidna oo ku dhaawacantay shacabka meeshaas ku dhintay waa ilaa 5 waaye isku darka tirada meeshaas ku dhimatay hal askari iyo 5 shacab ah walihaas qof waaye todobadii ugu sahayna meeshaas ayaa la dhigay oo midkooda u daadsan yahay marka intaas ay ahayd wixii meesha ka dhacay waan gartay kooxaha weerarka soo qaaday tiradooda meeqa ay gaaraysay imsa ayaa isqarxiyay laba baabuur ayay kala saarnaayeen oo isqarxiyeen labada baabuur shanta kalena waxay isku dayeen inay soo galaan meesha weerarka soo qaadaan shantoodina midna uma suurtoobo inuu gudaha u soo gudbo oo hore u soo gudbo warbixinta waxaa lagu bixinaya hadda xafiiskii oo ayaa lagu bixinayay wax mushkilad ka jirta ma ay jirto banaanka sidii hore ah ayaa ay dhamaantood lagu wada laayay. xarakada al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan iskugu jiray qaraxyada iyo kuwa tooska ee lagu qaaday xarunta dambi baarista ciidamada booliska waxaana afayeenka howlgallada al-shabaab Cabdicasiis oo Muscab uu sheegay in weerarkan ay la beegsadeen saraakiil Soomaali iyo ajnabi. weerarkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli dhawaan mudane hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya iyo qof naftii hura ay isku qarxiyeen agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyadoona weerarkaasi ay ku dhinteen ku dhawaad 15 ruux halka tira intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen. maxamed cabdi sanay telefishinka caalamiga ee bulsho بلد وين